waxaa maanta lagu wareejay xarunta caafimaad ee degmada Garadaga gobolka Sanaag Gabdawooyina taasoo wax badan ka tari doonta baahiyaha aasaasiga ee bulshada ku nool degmada Garadaga iyo deegaanada hoos yimaada waxaana daawooyinkani si wada jir ah u wareejiyay hay'adda World Council oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka waxaana ka warbixisay Kawsar Saleebaan Guure oo ka socotay wasaaradda caafimaadka gaar ahaan waaxda adeegyada caafimaadka iyo cisbitaalada waxaana hadalada سلام قورة كسرت وسارة عافماتك واحد أديجة عافماتك يا عسبت هلا نجارهنا واحد سكشن كمان ملك يمارن تداوين كيا وكعافماتك وحن ما تكوري تينا MCH كقرادة معمولة MCH كقرادة بطرية داوين ترددوا أيضا تايلي حيث دوات نايتهم ورنتها essential medicine داوين كاس أورنوغي يمي نسوق قرسين هاي the World Council iyo ay kaashanayso hay'adda hoymidika ay wasaaradda caafimaadka ku soo wareejiyeen wasaaradda caafimaadkuna ay soo fududeysay oo soo qaybisay deegaanada runtii marka intii saamiga ka heshay degmada Garadaga ayaan maanta halkan ku wareejin doonaa waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka Salabaan Xabli Toosiye agaasimaha guud iyo hay'adda World Council iyo hoymidika oo runtii kaalin mug iyo miisaan ka qaatay keenista iyo maxay ahaydey caawinta daawadan dalku u baahnaa in badan runtii marka kartoonaan loo eego laga yaabaa inay yar tahay laakiin daawada iyo inta ku jirta iyo quality-geedu waa runtii daawo jarmal ah oo aan maxay ahaydey la qiyaasi karin waxaan kula dardaarmayaa maamulaha MCH-ka iyo runtii maamulaha guud ee caafimaadka ee degmadaba inay daawadan ilaaliyaan sidii loogu talagalay si ay uga faa'iideystaan baahiyaha caafimaadka ee loo qabo runtii aad u ballaaran gobolka dhan gaar ahaan degmooyinka loogana faa'iideeyo dadka runtii ay xaqooda kamid ahaa dhinaca kale ayayna waxa agabkaasi dawooyinka guddoomay madaxa caafimaadka MCH-ka degmada Garadaga Badreeye Saleebaan Muuse oo ka mahadceliyay وينو كنتي وزارة العافية ضل كنسر هذه أبوي من هذولنا تعودنا هذه أبوي بعدين ميش نادي طلقنا تبص بركة عيو أبان سامي بجتي دوي ولا كان واحد نترجي gabagabadiina waxaa hadalka soo xidhay xubin ka socotay wasaaradda caafimaadka ahna gudoomiyaha madaxa caafimaadka degmada Ceelif Weyn Maxamed Cilmi Raage waxa uu sharaxaad dheeraad ah ka bixiyay inta deegaane ay guddoonsiin doonaan dawooyinka aad iyo aad fiican ha iska macnaha waxlaan way dhaaftay marka waxa way daacadu إلهي بعد الجرائية لكن سمدي إلهينا وفرتي الحمد لله رب العالمين ومالين بركة ومالين جمعة إلهي سمدينا وظفري هو سفر ونكسر يقول بني أيام إلهي يذكر شيئا غير جرد يبدي يملح أصليها عامته إلى شيطان كل يبرودان إلهي لكبرية أنا قلنا كل يوم كسي صلاة سلا سوكلا أيه وحوي أفر مرات بهاي أفرطان مرات هو waxaana mar labaad ku celinayaa wasaaradda caafimaadka oo runtii u heelan saacad kasta iyo waqti kasta sida ay u shaqeynayso gobolada degmooyinka tuulooyinka marka agaasimayaasha waaxyada maxaan qaybta daawooyinka guud oo ay igala socoto macnaha Kawsar Saleebaan Guure Cismaan dhammaan inta kani Faraxad Cabdi Nuur telefishinka caalamiga ee Honka TV Garadaga